kala midna ma ahayn dhinaca kale waxa lagu soo eedeeyay kaasi inuu qarannimada Soomaaliland wiiqayay la gareeyo muuqaalka cidii muuqaalkan la gareysana waxaan eeba weyne subxaana wa tacaala uga baryaa inuu ilaahay awlaada u barakeeyo qof kasta muuqaalkan la gareeyana sheerta ku qabto waxaan eeba weyne subxaana wa tacaala uga baryaa inuu ilaahay meel adduunyo sanfideen uu siiyo kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada muuqaalkan Bilaal Bulshaabe ayaa laga sii deeyay xabsiga Hargeysa madaxweynaha TikTok ayuu la magac baxay wiilkan dhalinyarada ah Bilaal Bulshaabe dhawaan ay ahayd markii uu xaalad sana kale soo galay kadib asagoo cabayshaha komishin kusoo dul sawray calanka baluuga kulanti wacan oo wanaagsan Bilaal Bulshaabe magaciisa dhabta yahay Cabdiqaadir Cali Maxamuud ayaa lagu xiray xabsiga Hargeysa wuxuuna sheegay inuu asaga Soomaali aad u taageero uu yahay Soomaali reer Muqdisho Bilaal Bulshaabe dhawaan ay ahayd markii uu ka soo degay diyaaradda hase yeeshee wuxuu diyaaradiisa ay caga dhigatay garoonka Somaliland hase yeeshee haatan ayaa la gudagalay in la sii diyo wad mahadsantiin dhammaantiin waxay wara soo kordhawaa anigoo Maxamed ah mahadsanidin